بسم الله الرحمن الرحيم qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah ku dhawaad 1,000 qof ayaa lagu soo waramaya in dhimasho dhaawac uu ka soo gaaray duqeyn ba'an oo Israa'iil 4 saac la soo dhaafay ay ku hayso magaalada Beirut ee caasimadda waddanka Lubnaan iyo magaalooyin kale dowladda waddanka Lubnaan ayaa ku tilmaamtay duqeymahani dambi dagaal waxaana ay dalbatay gargaar caalami ah Hezbollah oo ka jawaabaysa weeraradan ayaa waxa ay duqeymo ku qaaday waqooyiga Israa'iil dhinaca kale Iiraan ayaa iyaduna ka farcelisay arrintan waxaana ay ku dhawaaqday inaysan ka qayb gali doonin shirka lagu wado Jimcaha inuu ka dhaco magaalada Islamabad waxaana la sheegay imika in lagu dhawaaqay in maraakiibtu aysan ka gudbi karin marinka Hormuz madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isna sheegaya Lubnaan inaysan qayb ka ahayn heshiiska xabajoojinta sabab la xiriira Hezbollah xaaladda ayaa lagu soo waramaya cirka inay ku shareeran tahay safaaradda Mareykanku uu ku leeyahay magaalada Baghdad ayaa lagu qaaday weerar diyaarad drone loo adeegsaday dhammaan wararkan iyo qodobo kale iyo falaqaynta iyo wixii waraha ee soo korna intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka Maxamed Cabdo wararkan isku soo duway ayaa qadka ku jira Maxamed aan ku bilowno qodobada wararka ugu waaweyn wasiirka caafimaadka ee Lubnaan ayaa digniin ku bixinaya in tirada dhimashada ee weerarka Israa'iil ay ku wado magaalada Beirut uu kor u kacayo wuxuuna ku tilmaamay xaaladdu inay tahay mid aad khatar u ah wasiirka ayaa waxa uu sheegay in 100 duulimaad oo xagga cirka ah oo weerar ah inay diiwaan geliyeen isla markaasna ay xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta meeshaas ay sii xumaanayso iyadoo tirada hordhaca ah ay tilmaamayso in 89 qof weerarka lagu dilay in ka badan 722 ay ku dhaawacmeen welina saraakiishu waxay afka ku adkeynayaan in tirada la filayo inay sii kordho gurmadka degdega ah ayaa weli ku dadaalaya in ay raadiyaan dadka ay dhaawacyada ka soo gaareen iyadoo baabuurta gurmadka degdega ambulance loo yaqaano ay dhaawaca isbitaalada u daabulayaan wasiirka ayaa sidoo kale soo saaray dalab degdeg ah oo kaga codsanayo hay'adaha caalamiga ah uguna baaqaya in ay gacan u fidiyaan nidaamka caafimaadka Lubnaan oo culays badan saaran yahay gantaalo ayaa laga soo riday koonfurta Lubnaan kadib markii Israa'iil ay weeraro isdaba jooga ku qaaday waddanka Lubnaan kii ugu xumaa ilaa iyo bisha Maaj labadeedii militariga Israa'iil ayaa sheegay in duqeynta xagga cirka ee gantaalada ka horjega halkaan ku celiyo militariga Israa'iil ayaa sheegay in seeriminada kadiga duulimaadka xagga cirka in laga howlgeliyo magaalooyinka ku yaala xuduudka ay ka mid tahay Shatula iyo galbeedka gobolka Jaliil waxayna arrintaani tilmaan cad u tahay in gantaalo ay soo socdaan iyo diyaarada aan duuliye lahayn markii horeysay Hezbollah ayaa sheegay inay ilaalinayeen xabad joojintii Mareykanka iyo Israa'iil Mareykanka iyo Iiraan dhex martay joojiyeen weeraradii ay ku qaadayeen Israa'iil hadda laakiin su'aalo badan ayaa ka yimid cawaaqibka ka dhalan kara in dagaalka xuduudka waqooyiga Israa'iil iyo koonfurta Lubnaan ka socda wargeyska la yiraahdo Wall Street Journal ayaa ku waramay Iiraan inay ku wargelisay dhexdhexaadiyaasha in ay ka baaraan degayso go'aankeeda ay dib ugu furayso marinka Hormuz haddana arrintaas waxay keentay hubaal la'aan la xiriirta in marinkan xasaasiga uu xirmo waxayna la soo xigtay ilo lagu kalsoon yahay waxa ay soo xiganayaan in warbixinta lagu sheegay in Iiraan ay fariin gaarsiisay dhexdhexaadiyaasha oo la filayo inay wada hadallada lagu qaban doono Islamabad oo lagu abuuray xabad joojinta in aynan imaanin fariintan ayaa waxaa lagu gudbiyey ilo diblomaasiyadeed waxaana la tilmaamayaa Iiraan inay isku xiriirinayso wadaxaajoodka gobolka iyo siyaasadeeda badda iyo arrimaha ka socda gobolka bariga dhexe waxaad moodaa hadda xaaladii xasiloonida ahayd in labada dhinacba laga rabo in ay ka shaqeeyaan Iiraan ayaa waxay tilmaamaysaa in ay joojinayso maraakiibta shidaalka qaada ee ka gudbaya marinka Hormuz
kadib markii la sheegay in xadgudub lagu sameeyey xabad joojintii Maraykanka iyo Iiraan ay gaareen oo Israa'iil ku xadgudubtay sida lagu sheegay wakaaladda wararka Faris ee laga leeyahay waddanka Iiraan. Tilaabadan haddii la meel mariyo ayaa waxay calaamad u tahay in saameyn weyn uu ku yeelanayo go'aankaasi marinkan muhiimka ah ee shidaalka caalamka u maro. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay Lubnaan inaynan qayb ka ahayn heshiiska dhowaan la gaaray marka la fiiriyo in Lubnaan ay joogaan ururka Xisbullah oo ku tilmaamay in xaaladaasi iyo colaadaasi ay tahay mid ka duwan waxyaabaha hadda laga hadlayo. Sida laga soo xiganayo warbaahinta Maraykanka, Trump ayaa tilmaamaya in arrinta Xisbullah ay u baahan tahay in si gaara loo xaliyo oo ku tilmaamay inay tahay mid ka baxsan arrimaha hadda laga wada hadlayo ee heshiiska. Hadalladan ayaa tilmaamaya in Maraykanka mowqifkiisa gobolka bariga dhexe uu kala faquuqayo. xiisadana hadda waxaad moodaa gobolka bariga dhexe oo dhan inay saameynayso. Safiirka waddanka Maraykanka u fadhiya dalka Ciraaq ayaa sheegay diyaarad daroona in lagu soo weeraray meel ku dhow xarunta Baghdad ay ku leeyihiin ku dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Baghdad. Bayaanka safiirka ka soo baxay ayaa lagu sheegay in weerarada ay qaadeen ururo gacan saar leh waddanka Iiraan, waxaana hoosta laga xariiqayaa in xaaladahaasi ay ku soo dhowaadeen goobo diblomaasiyadeed iyo goobo gaadiidka diblomaasiyiinta ay yaaleen magaalada Baghdad. Arrimahani ayaa waxa ay muujinayaan walwalka xagga amniga ee Baghdad, gaar ahaan deegaanada ay degan yihiin safaaradaha ajnabiga iyo kaabayaasha muhiimka ee Maraykanka iyo xiisadda gobolka ka dhaxaysa gobolka bariga dhexe ka jirta, gaar ahaan Ciraaq saameynta ay leedahay. Sarkaal Maraykana ayaa beeniyey in dowladda Maraykanka ama Israa'iil ay mas'uul ka yihiin weerar dhowaan lagu qaaday goob saliidda lagu safeeyo ee waddanka Iiraan, sida laga soo xigtay warbaahinta Axios. Sarkaalkan ayaa waxa uu sheegay dowladda Maraykanka iyo Israa'iil midoodna ma aynan qaadin weerarkaas, iyadoo la isla dhex marayo mas'uuliyadda weerarkaasi in Maraykanka iyo Israa'iil ay leeyihiin. Beenayntan ayaa imaanaysa iyadoo xiisaddu ay aad u sarreyso gobolka bariga dhexe ka jirta, iyo iyadoo hubaal la'aan ay ka jirto ciddii ka dambeysay weerarka lagu qaaday kaabahaasi, waxaana ay saameyn ku yeelan kartaa xasiloonida gobolka bariga dhexe. Ra'iisul wasaaraha waddanka Pakistan Sharif ayaa sheegay in xadgudub lagu sameeyey xabad joojintii la gaaray oo lagu yareysanayo ruuxiyaddii geedi socodka nabadda. Waxaan naga dhab ah buu yiri inaan dalabno in dhinacyadu ay isxakameeyaan lana xushmeeyo xabad joojinta labada toddobaad ah ee la isku afgartay, iyadoo nidaamka diblomaasiyadeed uu horseedi doono xabad joojin colaadda lagu soo afjarayo iyo nabad, ayuu ku qoray bartiisa baraha bulshada. Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa u sheegay dhigiisa waddanka Maraykanka mar ay taleefon ku wada hadleen in aan fursadan xabad joojinta Iiraan lala galay aanan la majaxaabin, sida xafiiskiisa laga sheegay. Waxaana laga soo xiganayaa Erdogan in uu sheegay madaxweynaha Maraykanka in fursadan labada toddobaad ah ee xabad joojinta ah in loo isticmaalo sidii lagu gaari lahaa nabad waarta. waa tahay maxamed, waa mahadsan tahay. daawadayaashuna way mahadsan yihiin. mar kale ayaan soo dhaweynaynaa. daawadayaal, waxaan u gudbaynaa falanqaynta wararka iyo wixii warah degdeg ah ee soo kordha. intaan u gudbin falanqaynta, aan eegno war degdeg ah oo hadda soo dhacay, gaar ahaan dhanka Iiraan. ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ayaa waxa ay si cad u sheegayaan in weerar lagu soo qaado Xisbullah uu ka dhigan yahay weerar lagu qaado Iiraan. arrintan ayaa si cad hadda loo sheegay. dhinaca kale, magaalada Tehran ee caasimadda waddanka Iiraan ayaa waxaa lagu soo warramaya in la howlgeliyey nidaamyada difaaca hawada. warkaas waa war hadda soo dhacay. dhinaca kale, madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isna hadda hadlay. wuxuu sheegayaa in qodobada Iiraan ay soo gudbisay 10 qodoba ay yihiin kuwa macquul ah. wuxuu yiri qol albaabad u xiran yihiin ayaan doonaynaa in arrintaasi aan kaga wada xaajoonno, waana arrin wuxuu yiri saldhig u ah xabad joojinta. waayahay, Lubnaan waanu imaan doonaa.
ويا محمد هذا كان ترامب طبعا قضب إيران أي سوء جديسي وحكم موقتا إن أيهين قضبه متكمل وديجا يا واحد عيدا كمريكا كنا سجبحان بريجا ده مركا إنه يراد مدحونها مريكا طبعا كاسي قضب وكوا معقولة محل لقوا في السيرة كلام khabiirada arrimahani la socda oo dhan kulligood waxay isku raacsan yihiin dowladda Mareykanka in lagu qasbay si xabad joojin loo gaaro Iran loola gaaro inay u hoggaansato qodobada ay Iran soo gudbisay Mareykanka qodobadii uu soo gudbiyay oo dhan miiska ayaa laga riday Iran si cad ayay u sheegtay in Mareykanku uu u baahan yahay inuu meedaanka dagaalka ku guuleysto Trump iyo culkiisa waa jabeen faallooyin badan ayaa ka soo baxaya waxyaabo badan oo la qariyay in ciidanka commandoska ee Mareykanka ee gaarka in ay isku dayeen in ay ku dagaan magaalada Isfahan oo balaayo iyo hoog iyo bac ka qabsaday diyaarado badan ku daateen askar badan looga laayay in khiyaaligii ahaa Iran ayaan lug ku galayaa in uu ku hungoobay madaxweynaha Mareykanka qodobadanna ma aha qodobo loo naxariisanayo Mareykanka Israa'iilna Mareykanka Iranna jixin ma taqaano dagaalka marka ay joojinayso waa inay hubsataa in ay gaarto guulo la soo hoyin karo haddana tillaabooyinka ay qaadayso oo ah haddii la weeraro Lubnaan waxay u dhigan tahay iyadoo Iran la weeraray waxa weeye Israa'iil iyo Mareykanka Iran uma kala socona waxaana muuqata Iran inay u aragto Israa'iil weerarka ay qaaday mid uu Mareykanku qaaday waxaana muuqata haddii Mareykanku uu xakameyn waayo Israa'iil waxaa muuqanaysa dagaalka inuu dib u bilaabanayo sida khabiirada hadal ku dhigayaan waa garta laakiin maxay tahay xakameynta waan maqlaynaa madaxweynaha Mareykanka wuxuu leeyahay Lubnaan kuma jirto heshiiska xabajoojinta sababtuna ay tahay Xisbullah joogitaankeeda arrinta waxay ku hor imaanaysaa xalay hadal uu sheediyey ra'iisul wasaaraha waddanka Pakistan Shahbaz Sharif oo ku leeyahay waxaa la gaaray heshiis Mareykanka iyo Iran u dhaxeeya oo dhammaan furimaha dagaalka ee gobolka oo ku jirta Lubnaan waliba ereygaas buu isticmaalay ay ku jirta Lubnaan in la gaaray marka sida isku afaqayaan waxaani ma waxa la oran karaa Iran naftigeeda way degdegto heshiis waxay gashay fudud Iran heshiiska aad arkaysid waa heshiis hordhac weeye Mareykanka laba goor oo hore ayuu xadgudub ku sameeyay heshiisyada la galay Iran waxa uu diiday ma jiro inay xadgudub samayso waxaana muuqata in Mareykanku uu qiimo ku sii adkaanayo Israa'iil dadkeeda ayay marin habaabinaysaa dagaalkan waa ku jabtay Xisbullah oo ay ku sheegaysaa inay daciif tahay ayaa guulo waaweyn ka soo hoysay Xisbullah laftirkeeda hadal ka soo baxay ayaa lagu tilmaamayaa geesinimada iyo adkaysiga iyo siday isu difaaceen Xisbullah iyo Iran ayaa ku qasabtay Mareykanka iyo Israa'iil inay garwaaqsadaan inay jabeen waxaana muuqata Israa'iil wax badan ayay ku fakatay in ay duqayso Gaza ayadoo xabad joojin la gaaray hadda waxaad moodaa tilaabada qaado in tilaabo laga daba qaadayo waxaana hadda muuqata Iran waxa ay sameyn doonto inaan la aqoonin midda kale Mareykanka haddii heshiiskan uu jabo cid danba oo dhexdhexaadin doonta iyo cid soo geli doonta lama arko waxaana muuqanaysa Mareykanka ciidankiisa gobolka bariga dhexe yaala jooga inuu kala daadsan yahay dhibaato weyn ay gaartay dagaalkan haddii ay uu sii socdana inayna dan ugu jirin Mareykanka ciddii dalbaysa xabad joojinta muddada dheer ku taamaysay waa Mareykanka haddana waxaa moodaa haddii xabad joojintan ay burburto Iran sida ay khabiirada hadal ku dhigayaan Mareykanka waxba kama dhegeysanayso waxna kama maqlayso shakhsiyaad badan oo Mareykan ka tirsan ayay diiday xataa inay shirka ka soo qayb galaan ama shirka inay qayb ka noqdaan sida wararka qaar ay hadda tilmaamayaan Mareykanka marka dan ayaa ugu jirta xabad joojintan Israa'iil inuu ka qabto Trump iyo Netanyahu waxyaabahay qorayaan iyo xaqiiqada meesha jirta waa kala duwan yihiin khasaaraha ay qirsan yihiin ay sheegayaan inay Iran gaarsiiyeen iyo khasaaraha ay gaaray aad ay u kala fog yihiin waxaana muuqata Iran inay weli isku kalsoon tahay muujisan xuduudeeda haddana ay ku biirtay gudaha waaweyn ee caalamka sida khabiirada qaar ay hadal ku dhigayaan asxaan ma aha Iran in xabad joojinteeda oo Mareykanku sheegayo in ay arrintan macquul tahay weeye ama ha jeclaado ama yoona jeclaanin sida Haaretz oo hadal ku dhigayo waxa weeye guusha ay Iran gaartay
وقرحة أو صعب بصارت وقرتي أن wargeys Israel baa soo hadal qaaday waxa xusid mudan caawa barnaamijka faraqaynta wararka inaynu ku soo qaadan doono wargeys Israel ka soo baxa oo si cad u leh Iran ayaa guuleysatay oo waliba la soo xiganayo nin khabiir ah oo Israa'iili ah waayahay maxamed dhinac kale aynu ka eegno duqeyntan hadda waxaa hadlaya ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka Iran ayaa gudoomiyaha baarlamaanka Lubnaan Nabil Barri ayaa hadlaya wuxuu leeyahay duqeyntan Iran ay duqeyntan Israa'iil ay qaaday Lubnaan wuxuu ku tilmaamay dambiye dagaal waxa isna hadda hadlaya madaxweynaha Lubnaan cawn oo isaga laftigiisa wuxuu leeyahay weerar bahalnimo oo falxun wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan waxay sheegaysaa duqeyntan dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay inay ka badan yihiin intii ku dhimatay ama ku dhaawacantay colaadii dhacday markii heshiiska xabadjirta la gaaray 2024 November wixii ka dambeeyay dadkii dhintay iyo kuwii dhaawacmay marka duqeyntan natiyaha cara la oran karaa inay ku saleysan tahay hadda waxa la wareysanayay sidoo kale nin arrimaha caafimaad ka shaqeeya wuxuu leeyahay goobaha la beegsaday waa goobo dad rayid degan yihiin sidoo kale wariyaasha ka soo hadlaya halkaas waxay leeyihiin ma aysan jirin digniin la siiyay dadka oo ahayd inay ka baxaan goobahaasi marka ma la oran karaa arrintan waa arrin Netanyahu ka careysan yahay heshiiska si kale haddaan u dhigno Trump ma xakameyn karaa Netanyahu Trump cid saadayn karto ma jirto waxa uu samaynayo laakiin waxa xaqiiqa waxa weeye dagaalka xabad joojin marka lagu dhawaaqo cidii gacanta ku dambaysa ayaa dagaal ku guuleysatay waa xeer caalami ah oo xagga dagaalka ah Iran maadaama ay ahayd dawladdii gacanta ku dambeysay dagaalka xabadihii markay istaageen oo dufcado duqeyna Israa'iil iyo saldhigyadii Mareykanka ay ku soo afjartay Israa'iil waxay isku dayaysaa madaxa inay ciidda ka heshato oo ay ku soo gabagabayso duqeyn xoog leh ay u geysato Lubnaan laakiin hadda waad aragtaa Lubnaaniyiinta ayaa ka jawaabaya oo duqeynaya Iran waa aragtaa tilaabada ay qaaday oo ay leedahay weerarkii lagu qaado ururka Hezbollah oo weerar Iran lagu qaaday oo macnaheedu yahay mustaqbalka hataa cidii isku dayda inay weerarto Iran ay weerarto waxa weeye adduunka xaalkiisu waa isbedel Mareykanka hadii uu gaashaan u ahaa garab u ahaa Israa'iil wax diiday ma jiro Iran oo kusoo biirtay quwadaha caalamka inay garab u noqoto Xuutiyiinta iyo Hezbollah oo labadaba Shiica iyo Ciraaq waxaana muuqata sida oo hadalka u dhigay Professor Sachs in Mareykanka ay macidi ka jabtay wax badan ayuu ku naalooday awood hadda laakiin waxaad moodaa in uu laqayo heshiis uunan wax badan ka oran karin waxa uu rabaa labada week in uu maareeyo oo guul iyo waxa sheegto laakiin markii ugu dambeyntii waxay noqonaysaa heshiiskaas inuu saxeixo oo ah inaan Iran weligiis dambe uu dagaal ku qaadi doonin Mareykanka in Iran looga dambeyn doono in uu marinka Hormuz yahay deegaan ay iyada ku amarku taaglayso Iran waxay u ogoshahay in yar oo kamid ah lacagaha laga ururiyo in ay siiso wadanka Oman waxa kale oo heshiiska ku jira oo Mareykanka oodin ku ah iyo boog aan weligeed bogsoonayn in gobolka bariga dhexe oonan xabad keeni karin iska dhaaf askari xabad inuu keeni karin waxa kale oo Mareykanka la soo gudboonaaday inuu ku ceegoobay wadamadii Carabta ahaa xoolahooda iyo maalkooda uu mudada dheer ku guuranayay inuu difaacayo mid kamid ah mas'uuliyiinta gacanka ayaa waxa uu sheegay cid gadan karta amaan ma jirto markii la arkay wixii dhacay 28kii February ilaa iyo dagaalkan hadda xabad joojinta looga la isla gaaray waxaana muuqata inay cid walba tashanayso Mareykanka meeqaamkii iyo miisaankii uu ku lahaa caalamka carabtu isbedelay iyo caalamka islaamka hadda waxa soo baxday awood weyn ayaa soo baxday oo ku gorgortamaysa in Mareykanka uu uga dambeeyo amniga marinka Hormuz iyo gobolka wadanka Iran arrintaasna Mareykanka culays xoog ayay ku tahay waxa sheeda ka qoslaya oo qayb ka ahaa in Mareykanka uu fashilmo
sida khabiirada qaar ay hadal ku dhigayaan Shiinaha iyo Ruushka. waxaan u gudbi doonaa nin khabiir ah oo Israa'iili ah oo Tel Aviv jooga oo wax la yaab leh ka sheekeynaya laakiin ma la oran karaa heshiiskan laftigiisa Trump waxay ka ahayd ballanqaadkii uu ballanqaaday uu lahaa albaabada cadaabtan soo furi doonaa iyo Iiraan waxaan ku celin doonaa casilo jaahirigii inay arrintu ahayd inuu kaga baxsado dhiiqada kaga baxo oo laakiin dhab arrintu aysan noqon hadda waxaynu arkaynaa Iiraan inay ku dhawaaqday sida Faris ay sheegayso maraakiibtii in la joojiyay ka gudbaysay Mareykanka Hormuz wadahadaladana waxay ku xirtay xabajoojinta Lebanon bay ku xirtay inaysan ka qayb gali doonin wadahadalada Mareykanka waxa la sheegayaa J Defense inuu uga qayb gali doono wadahadalada Iiraan waxa la leeyahay wiil laguma dhawaaqin laakiin gudoomiyaha baarlamaanka ayaa loo badinayaa laakiin waxay ku xirtay si rasmi ah arrinta Lebanon marka Trump la oran karaa wadiiqa uu ku bixi doonayay oo waxaan dhab kama ahaynba khabiirada arrimahan la fagurayay cid saadaalin karta Mareykan ma jiro Sachs wuxuu yiri Mareykanku madaxweynaha ka taliya inuu yahay nin aan dhimirkiisu hagaagsanayn waxa uu sheegayo iyo waxa uu ku dhaqmayo daqiiqad walba way isbedelayaan wuxuu damacsan yahay iyo wuxuu damacsanaa cid ogsoon lama arko laakiin hal mid ayaa la isku raacay madaxweynaha Mareykanka nin naxariista maaha nin gabadha maaha awood sheega ayuu islahaa awoodii uu sheeganayay mid ka weyn ayaa timid qasaarihii uu la raadinayay Iiraan mid ka weyn ayaa gaaray ciidamadiisa 30 sano ee la soo dhaafay awoodii Mareykanka uu ku dhisayay gobolka Bariga Dhexe oo dhan ayaa olashay oo dambas ah waxaa intaa dheer in askartiisii ay goobo rayida wadanka Sultanka Imaaraadka Carabta Kuwait Bahrain Qatar ay ku dhuumaalaysanayaan iyo Sacuudiga waxaana muuqata Mareykanka taariikhdiisa guuldarro sidaan oo kale ah weligii lama kulmin ayaa leeyahay wax lala barbar dhigo ee taariikhda soo mara lama arko Mareykanka wax badan ayuu ku naalooday in uu dambiye galo dambiyadan waxaad moodaa in ku filan in laga gooyay madaxweynaha Mareykanka marka ra'yigiisa iyo waxay la tahay iyo waxa uu sheegayo Iiraan mudanaynaso Iiraan cid allaale cidii ka dhimata shahiid ayuu haysataa mabaadi'deedana inay ka noqonayso maaha miiska maalintii kow maalintii saddexaad ee dagaalka waraaqda ay soo saartay weeye madaxweynaha Mareykanka 40 maalmood kadib miduu aqbalay oo ku sheegay waa suuragal maxamed aan intaan u gudbin analysta ninkan lafaguraha war degdeg ah hadda wuxuu ka soo dhacay dhanka Iiraan warkan aad buu culus yahay wakaaladda wararka tasniim ee Iiraan laga leeyahay ayaa waxay soo tuurtay war degdeg ah oo ay leedahay ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ah ee Iiraan ayaa waxa ay sheegeen in ay bixin doonaan jawaab culus oo masiibo ah haddii Israa'iil aysan degdeg ku joojin weerarada ay ku hayso Lebanon waxaana ay sheegeen in jawaabta ay noqon doonto mid gobolka oo dhan halis gelin karta haddii aan si degdeg ah loo joojin weerarkaasi waa tahay waayahay maxamed aan kusoo gabagabayno ninkan lafaguraha ee Israa'iiliga ku sugan magaalada Tel Aviv oo gor dhaweyto warbixin uu siiyay warbaahinta uu kaga hadlay Netanyahu iyo dagaalkan sida uu ugu guul daraystay barilo faahfaahay ninkan warkiisa ninkan wuxuu lafaguraa siyaasadda wadanka Israa'iil Ori Goldberg ayaa la yiraahdaa waxa uu sheegayaa in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu kashifmay uuna lugooyo ku yahay dowladda Mareykanka gaar ahaan dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ee ka dhanka wadanka Iiraan waxa uu sheegay hogaamiyaha Israa'iil hadda inuu lafna caaliya isku dayayo in uu wali wax samayn karo Netanyahu waxa isku halaynayaa Trump laakiin wax walba uu lumiyay waxaana muuqata buu leeyahay in uu isku dayayo in uu Trump shaqadiisa mataqaanaa uu faragashto laakiin wax walba waa ka khaldameen waxaana muuqata Lebanon oo dhowr goor hore xadgudub ku sameyn jiray hadda waxa weeye caalamka dhan ayaa arka beesha caalamkana waxa loo baahan yahay inay tallaabo ka qaado Israa'iil oo tallaabooyinka beesha caalamka ay qaadi kartana waxa kamid ah cunaqabatayn waa tahay maxamed waa mahadsan tahay daawadayaashuna ay mahadsan yihiin inta ayaan caawa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka
daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir aynu barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo